dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka iyo bilowgii dagaalkii qabooba dhulka Kuuriya waxa uu qaybsanaa laba qaybood oo kala ah jamhuuriyadda dadka ee Kuuriya oo waqooyi ahayd iyo jamhuuriyadda Kuuriya oo koonfur ahayd. haddaba waxaynu muuqaalkeenan isku dul taagi doonaa haddii alla weyne ogolaado colaadda labaad ee ugu muddada dheer taariikhda adduunka waqtigan aynu joogno. jasiiradlamooda Kuuriya waxay dhacdaa bariga fog ee qaaradda Asia waxaana dhinaca waqooyi xad kala leh Shiinaha iyo Ruushka. saddexda jihe ee kalena waxaa kaga meegaaran ama kaga wareegsan badweyn, waana sababta loo yidhaahdo jasiiradlamood. waxaanay ahayd meel la deganaa ka hor taariikhda miilaadiga iyadoo martigelisay dowlado iyo embaradoriyado soo tarinaya ka hor waqtigan casriga. waxaana ugu dambeysay embaradoriyadii Kuuriya oo dhalatay dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa laga soo gaadhayay 22 August 1910 oo ay Jabaanku qabsadeen gebi ahaanba dhulka Kuuriya. boqortooyada Jabaanna waxay ahayd dowlad ka horumarsan dowladihii ka dhisnaa bariga qaaradda Asia, iyadaana Kuuriya kasii talinaysay ilaa iyo dhammaadkii dagaalweynihii labaad ee adduunka 1945 oo ahayd markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka. waxay wadamadii ku guuleystay dagaalka ee kala ahaa Sofiyeetkii, Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriisku ay ku heshiiyeen in jasiiradlamooda Kuuriya loo qaybiyo laba qaybood, waxaana xal looga dhigay xariiqda 38 degree ee waqooyi kaga beegan dhulbaraha. qorshayaashii iyo fikradihii ay kala wateen bariga iyo galbeedku waxay dhaxalsiisay dadkii afka, isirka iyo caqiidadaba ka midaysnaa in la dhex dhigo colaad labaad oo ah colaadda labaad ee ugu taariikhda dheer adduunka. waxaana ka dheer oo keliya colaadda Kashmir ee Hindiya iyo Pakistan oo iyadu bilaabantay 2 sano uun ka hor colaadda Kuuriya. haddaba 3 sano kadib kala qaybintii dhulka Kuuriya oo ku beegnayd 1948 ayay si rasmi ah u kala noqdeen laba dowladood oo kala madax bannaan, waxaana kala qaateen nidaamkii hanti wadaagga oo uu waqooyigu qaatay iyo koonfurta oo hanti goosad laga dhigay. joogitaankii Mareykanka iyo xulafadiisu joogeen koonfurta Kuuriya waxay shaki iyo xanaaq ku beertay Kuuriyadii waqooyi, taas oo dhalisay in 25 Juun 1950 ay xadka ka tallaabeen militarigii Kuuriyada waqooyi iyagoo duulaan ku ekeeyay dariskoodii koonfureed, waxaanay 3 casho gudahood ku qabsadeen caasimadii Seoul. waxaana gacanta ku dhigtay Kuuriyada waqooyi badiba dhulkii Kuuriyada koonfureed, waxaana dagaalkii si toos ah ugu soo biiray 20 dowladood oo uu Mareykanku horkacayo iyagoo ku soo dagaal galay calanka qaramada midoobay. waxaanay dib uga soo saareen dhulkii ay qabsadeen ciidamadii Kuuriyada waqooyi. riixitaankii la soo riixay Kuuriyada waqooyi ayaa dhalisay in Shiinuhu ku hanjabay in uu dagaalka si toos ah u soo gelayo haddii la soo dhaafo xariiqda 38 degree ee hore xadka looga dhigay labada wadan. hayeeshee hanjabaadaasi ma joojin koonfurtii iyo xulafadeedii uu Mareykanku horkacayay iyagoo soo gaadhay meelo u dhow xuduudaha Ruushka iyo Shiinaha. 19 Oktoobar 1950 waxaa webiga Yaaluu ee xadka Shiinaha ka soo gudbay kumanaan askari oo ku gaashaaman hubka culus. markaas ayuuna Shiinuhu dagaalkii si toos ah u soo galay. dalweynihii midowga Soofiyeedna wuxuu dhalinyaradii wadankiisa ugu baaqay inay dagaalka socdo u galaan si volunteer ah, iyagoo dib u qabsaday caasimadii Seoul ee koonfurta Kuuriya, halka uu Mareykankuna ku hanjabay in uu hubkiisa atomikada ah adeegsan doono haddii aan dhulka koonfurta Kuuriya dib looga bixin. waxaana Seoul la qabsaday intuu dagaalkaasi socday tiraba 4 jeer. saddex sano oo dagaalkaasi socday kadib waxaa lagu heshiiyey xabatoojin ay ka soo shaqeeyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay. farsamo ahaanna dagaalku ma uusan dhammaan ee wuxuunbaa la saxeexay heshiis ahaa in balxabadda uu la joojiyo. waxaanay Kuuriya ka dhaxashay dagaalkaas duqayntii ugu badnayd ee taariikhda soo marta, gaar ahaan qaybta waqooyi ee Kuuriya, iyo weliba sidoo kale dhimashadii ugu badnayd abid. dagaalka Kuuriyana
wuxuu ka dhimasho badnaa xitaa dagaalweynihii labaad ee adduunka iyo dagaalkii Vietnamba. Mareykanka oo kaliya waxaa kaga dhintay ugu yaraan 36,000 oo askari iyo kumanaan kale oo xulafadiisii ah. Shiinuhuna waxa uu ku waayay dagaalkaas in ka badan 1 milyan oo ah askartiisii. wuxuu sidoo kale dagaalkaasi galaaftay ku dhawaad 4 milyan oo u dhashay jasiiradda Korea. colaadaas galaafatay malaayiinka nafood waxaa kaliya ee loo dagaalamayay wuxuunbay ahayd tartankii ka dhexeeyay quwadaha waaweyn ee caalamka. mana jirto dhinac ku faani karta maanta guulo muhiim ah oo ay ka gaadhay dagaalkaas. waxayna noqotay colaadii ugu horeysay ee ay joojinteeda ka qayb qaataan ciidamo nabad ilaalineed oo ay qaramada midoobay yeelato.